بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، أن علماء waxay ku yidhaahdeen mawduucaad galaysaa dee diintu waa la kacabsi baan ku yidhaa, la kacabsi umaan geli doonaa, laakiin موضوع التقوى بالذات كما ورميه عن اسكدي دوناون الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوحط المام يوحكة المام. حديث كإمام الدارقطني وسوريي قضية المقدسين في المختار وكوريي شيخ الألباني وحسن وقلت المام يوأه المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس ينفعهم للناس. نبي عليه الصلاة والسلام وحط الماما يردقن كقفك مسلم كايوحي مؤمنك دقن كيسو حويا منبي ليه يألف ويؤلف. مؤمنك واقف لغصة أروره لغصة هرته dhaqan wanaagiisa, akhlaaq fiicnidiisa, caqiida wanaagiisa, waxtarkiisa adduunya waxtarkiisa aakhiraba waa qof dadku ay dhankiisa u soo kacaan, isagana aan dadku ka kala cararin. khayr male buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaan dadku ku soo dhowaanin ama jeclaanin, isagana aanay dadku jeclayn ama ku soo dhowaanin. يعني الفدى التي الماميه إلهي سبحانه وتعالى لفظي كان قرآن كما يلبض بكو استعمال والمؤلفة قلوبهم أما سواك إلهي كنت عماميا وألف بين قلوبكم والضمد يكل من ماشا تمحلت المامية وحويا قفك مؤمن كاهي وقف دقن كيسا يدين تيسو أي كان سانيسو bulshadu inay ku soo hirato ku soo dhawaato. qofka mu'minkii maaha mid lacaana, mid cayb badan, mid gacan adag, mid dhaqan xun. dadka badh baa jira markay kaa soo horbaxaan aad waddada uga weecato, ama golahay fadhiyaan aanad jeclayn inaad fadhiisato, ama meeshaa fadhidaan aanad ku farxin markuu kuu yimaado. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay qofka mu'minkii kaa maaha. qofka mu'minkaahi waa mid dadku ku soo ururaan oo ku soo hirtaan oo jecel yihiin oo u yimaadaan, isaguna dadka jecel oo ku soo dhowaada. kaan sidaa ahayn buu nebigu leeyay khayr ma leh. dadka waxaa u mudan buu markaa nebigu yidhi wa khayru nnaas waxaa u mudan u fiican anfacuhum linnaas anfacuhum linnaas, dadka ka ugu waxtar badan. dadka waxa ugu mudan buu nebigu leeyay markii la tilmaamay mu'minku qof lagu soo dhowaado lagu soo hirtay inuu iyo dhaqankiisuba caynkaaye. mu'minkaa laftiisu noocaasi sidee bay u kala fiican yihiin? waxay iyaguna u sii kala fiican yihiin buu nebigu leeyay anfacuhum linnaas, dadka ka ugu waxtar badan. asalka waa kii xadiidka muslim ku yaala النبي عليه الصلاة والسلام كنت المامي من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. حنوما لينا يا حديث كان سببتي سوينا هيد قلادي تري وحبانو تفتفنا ما وحبانو آخرنا يودت كواد دوينا يريب الاتوسا وحا وحكو دويسان ومركا ياركين ونبي أركي وحي آخريان إن أن معصي يحمي شركتون كوشرين وحكولي من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. ninkii awooda inuu walaalkii waxtarow wuxuu doonaba ha noqdo, qofkii awooda walaalkiisa kale inuu waxtarow falyafcal buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. sidaasi ha yeelo. xadiidkaasi markaa cumuuman wuxuu tilmaamayaa dhaqanka qofka muslimka uu leeyahay wuxuu yahay. waxaa kaloo uu tilmaamayaa iimaanku iyo akhlaaqda fiican siday mu'miniintu ugu kala sarreeyaan inay ka mid tahay siday u kala nafci badan yihiin.
siday u kala waxtar badan yihiin nafcigan aynu ka hadlaynaa markaa waa maxay waa nafci adduunyo iyo mid aakhiraba waxtar adduun iyo waxtar aakhiro bini aadam wax la taro horta waxa ugu weyn kow inaad aakhiradiisa badbaadiso khasaaraha ugu weyn ee bini aadam ku dhaca waa dii cimrigii oo dhan inaad khasaarto nolosha caadiga ah maalan ninka taajirka ninka wax baranaya ninka guursanaya ninka baa laga yaabaa marmar inaad ku khasaarto wixii aad samaysay waxbarashadii inaad saaqida ama intaad soo baratay waxba shaqo ku weydo tijaaradii intaad gashay inay kaa khasaarto laakiin waxaad rumaysan tahay weli inaad haysato maxay chance wax kale inaad tijaabin karto haddaad tijaarada markan loosgarayso weyday inaad si kale isugu dayi karto lacalla in mar dambe alla kuu furee guurku hadduu markaan kaa xumaado inaad mar dambe tijaabin karto waxbarashadu markaan hadday kaa xumaato inaad laakiin meel baa jirta hadday xumaato tijaabo dambaba aan lahayn waa cimriga markaad khasaarto markaad geeriyooto ee kitaabkaaga la laabo hadduu khasaare ku guntamo soo noqosho ma leh jaanis dambe ma leh marka khasaaraha qofka kaa badbaadiyey ilaahay sababtiisa kaaga badbaadiyey waa qofka kugu waxtar badan مثلا waxaynu leeyahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii diinta uu soo dhiibay nolosheenna waa dadka inoogu waxtar badan waxaa laga yaabaa adigu markaad waxtar ka fikirto dadka nool iyo meelaha kan inaad egeegto laakiin dadka inoogu waxtar badan leh waa dadka aakhiradeenna badbaadiyey ee nolosheennu waxay ku hagaagaysay tu adduun iyo tu aakhira baa inoo sheegay sidaa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa waalcasri إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر انت الرب الدارتي يا الله حلي بن آدم كدمانتي خسارة برتن كيف كتشرب عليه لا في خسر إلهي بدارنا سبحانه وتعالى وحنو كدارنا يا بن آدم كونوا خسارة برتن كيس كتشرو qolaa alla ka soo reebo la yidhi khasaaraha way ka baxday oo iyaguma khasaarin waa qolada laga helay iimaan iyo camal suuban ama hagaagsan markaasaa weliba camalkaa suuban wax ka mida lasii tilmaamoo la yidhi waa kuwa xaqa isu dardaarma sabirkana isu dardaarma qofka xaqa kuu dardaarmay ee sabir kuu dardaarmay wax ku anfaco waxyaabihii kuugu wanaagsanaa buu kuu sheegay wax ku tara wixii kuugu roona sidaa awgeed maalan dhallinyaraatiin haddaynu dhallinyarada qur-aanku ka warramo wax ka tilmaamno ilaahay wuxuu ka warramayaa nebiyullaahi yuusuf oo dhallinyaro ah nebi yuusuf oo dhallinyaro ah oo imtixaano tiro badan ee nolosha soo mareen nebi yuusuf bin aadam imtixaanada mara kuwii ugu adkaabaa soo maray isagoo yar oo carruuraba walaaladii la colloobeen dabeetana waa tuureen god bay ku rideen godkii baa safar kala baxay isagoo yaroo carruuray addoonsadeen waa iibiyeen sida alaabta loo iibiyo reer baa laga iibiyey reerkii laga iibiyey baa haddana nin qurux badan buu hayo quruxdiisii haddana imtixaan ku noqotay oo haweentii joogtay jeclaatay waa diiday inay wax kasta oo ay ku khaldi karto ku samaysaaba isku dayday waa iska soo taagay inay boobtaayo kufsataaba isku dayday waa cararay dharkay ka dildillaacisay haddana waa la qabtay waa la xidhay xabsuu ku galay isagoo waxba samaynin ayuu xabsi ku galay xabsiga maxaa loo geliyey guriga boqortooyada ceebtiisu inaanay dabadda u soo bixin markii hadalka la maqmaqlay si loo ilaabo waayo ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa markii ay u caddaatay inaanu ninkani beri yahay kadib baa la xidhay berinimadiisi iyo cad baa la xidhay si warkanba loo ilaabo oo wuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi yuusuf oo waxaasoo dulmiya lagu sameeyey ayuu wuxuu ku tilmaamayaa inuu haddana muxsin ahaa
qof samaka taliye ahaa qof wanaag ka shaqeeya u ahaa dadkaasoo dulmiyey colaadba lama qaadan ee wuxuu isku dayay inuu wanaagun ugu yeedho ilaahay wuxuu inooga warramayaa markuu guriga joogay inuu ninka odayga ah ee gurigiisa uu joogay inuu cirdigiisa iyo sharaftidiisa u ilaaliyey inuu yidhi marnaba ninkii anigay wanaajiye gurigiisa ay keenay reerkiisa ugu xadgudbi maayo ku faraxumo ku samayn maayo xabsiga markuu galay qur-aanku wuxuu tilmaamaya laba wiil baa lala soo xidhay wadakhala macahu sijna fatayaan labaa lala soo xidhay labadii lala soo xidhay riyay sheegteen inay riyoodeen dabeetana waxay rabaan inuu riyada u fasiro riyadii intay u sheegteen riyada kama warramo ma rabo inaan ka warramo laakiin waxaan ka warramaya maxay riyada ugu sheegteen waxay dhahay innaa naraaka min almuxsiniin waxaanu kuu aragnaa bay leeyihin kuwa ixsaanka sameeye ee dadka waxtara inaad ka mid tahay waxaa muuqata nebi yuusuf xataa xabsiga gudihiisa muu odhanin qolo gaalaaba ay xidhatay oo waa lay dulmiyo cadho waxaad aragtaba geeska ku qaad ee waxa uu tilmaamayaa nimanka kani nebi yuusuf xabsiga xataa gudihiisa inuu qof wanaagsan ku yaho dadka waxtara marka waxay leeyihin riyadayadatan baanu rabnaa inaad noo fasirto innaa naraaka min almuxsiniin inuu waxtar badnaa qur-aanku wuxuu kaloo inoogu tilmaamayaa walaaladiisii godka ku riday oo aan garanaynin isagoo xabsigii ka soo baxay oo madaxa ayay u yimaadeen dabeetana waa kii sida fiican safarkoodii iyo lacagtii iyo wixiiba siiyey mu odhanin waa nimankii godkaygu riday anna maanta madax baan ahaaye waana argoosanayaaye ha la xidhxidho waa xidhxidhi karayey godkiisiina waa ku guri karayey inuu xidhxidho daaye intuu cafiyey oo xoolo siiyey ayuu sii daayey iyo waan garanaynin xataa isuma sheegin markii dambe uu walaalkii kala soo hadhay maxay ku lahaayeen fakhud axadanaa makaanah innaa naraaka min almuxsiniin bayana leeyihin kuwa aabba waana qabsanayaaye kuwa yagan kale mid qaada bay leeyihin oo wiilka yar noo sii daa waayo innaa naraaka min almuxsiniin bay tilmaamayaan nimankii godka ku soo riday waxay kaga abaal sheeganayaan inuu yahay maxay qof ixsaan badan inuu yahay intaa waxa dheer waxa laga yaabaa inaad tidhaahdo war kuwani dee waa walaaladii dee mar haddii ay niman isku aabbaayiin oo walaalkii uu yahay inkastoo walaalkaa kaa gardaran yahay marar badan baa qaraabanimada iyo walaalnimadu ku qaadaayo aad laga yaabaa walaalkaa inaad waxba ka soo qaadin wixii uu kuu geystay aad cafido bal kuwa aanay walaalahayn aynu eegno nebi yuusuf boqortooyada xidhatay xabsiyada boqorrada ee markaa meesha ka muuqday waxay ahayd xabsi aan tiraba lahayn meeshuuna lagu ridaa la yidhi sanawaad markuu ku jiray falabita fi sijni bidca siniin baa ilaahay tilmaamaya sannado culammadu waxay dhahaan 7 sannado iyo meelaha markuu ku jiray xabsiga ayaa boqorkii riyooday dabeetana xaashidiis iyo dadkii u dhowaa ayuu yidhi war riyada tan yaa ii fasiraya waxay yidhaahdeen waa adqaasu axlaam tani mid la fasiri kara maaha bay yidhahdeen waa mid aanan garanaynin fasirkeeda gaaladii iyo intiis ag joogtay waa fasiri kari weyday kadib baa labadii uu riyada u fasiray sidii uu ugu fasiray waa tii noqoto midna wuxuu yidhi waa lagu dilayaa midna waa lagu sii daynaya boqorkaad khamriga u shushubi doontaa kii boqorka khamriga u shushubayo meesha jooga oo uu markii horena yidhi war boqorka ii sheeg inaan dulmi ku xidhnahay ayaa waxba ma xasuusanay markii la iska soo daayey dantiisu iska raacday hadduu xasuustay inay yuusuf u baahan yihiin dabeetana wuxuu yidhi ha lay diro nin baan ogahay xabsiga ku jiro haddii aan riyada fasiro haddii aan riyada u geeyo fasiraye
may odhanin warrinkaa la soo daayo ha la keenee manuu odhanin warrinkaa ha la soo daayo riyada haynoo fasiree ee wuxuu leeyahay xabsiga ha lay diro riyada haynoo soo fasiree isagoo maxbuusa ayaa laga rabaa haddana riyada boqorka inuu fasiro waa u yimaadeen muxuu uga bilaabay yuusufu ayuha asidiiqu aftinaa fii 7 baqaraatin simaanin yaakuluhunna 7 cijaafun وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون war yuusufow yaa yuusuf buu leeyahay ninkii saaxiibkayga ahaayow war riyada noo fasir buu leeyahay 7 sac oo buurbuuran oo 7 kaloo liiliita cunaya riyuu sheegay dabeetana wuxuu yidhi riyadaa noo fasir aan dadkii kula noqdo waxaa laga yaabaa in riyadaa cilmigeeda gartaane haddee yuusuf iyo xabsigiisaba ka hadli maayo ee wuxuu ka hadlayaa in riyada la fasiro oo uu dadkii dabeetana fasirka u geeyo yuusuf ma odhanin war gaalay ordooyga taga waxba idin fasiri maayo ee dhaafa riyadu waxay sheegaysaa mahalaka riyada sida uu fasiray yuusuf waxay sheegaysaa dadkan in balaaya ku soo socoto isma odhanin gaaladaa alla ha dhammeeye oo adigii iyaba ku soo xidhaye ha madhaane u aamu ma odhanin ee wuu u fasiray wuxuu ku yidhi war xabsiga iga sii daaya xataa ma odhanin waa idiin fasirayaa ee riyadoodunbuu isaga fasiray wuxuu ku yidhi 7 sannadood oo barwaaqo ah baa idin soo maraya 7 sannadood ee barwaaqadii markay idin soo maraan wixii beeraha idinka soo go'a wax yaroo ah cuntaan mooyaane inta kale kaydiya bale sumbulkiisa xataa ha ka goynina midhaha sideeda iyadoo ah kaydiya sannad walba waa barwaaqo waa beeraysaan wixii beerta ka soo go'a waxaa cuntaan mooyaane waxa kale kayd dhiga tiro badan 7 sannadood kadib buu yidhi waxaa idiin iman doona 7 sannadood oo abaar ah 7 kale oo abaara baa idin soo maraya wixii aad kaydsateen 7 kale ku qiyaasta inaad cuni kartaan sannadba sannad inuu gudo iyagu 2 sabcay u sheegeen markaasuu haddana wuxuu u sheegay sannad dambe oo barwaaqi inuu dhici doono oo 7 iyagu sheegeenay yuusuf sannadkan kale xaguu ka keenay waxay culimmadu yidhahdaan wuxuu ka keenay dee haddaad 7 barwaaqo aad sheegtay 7 abaara aad sheegtay hadday sannadka kalena uu abaariyay dee 8 abaar u sheegi lahaa marka maadaama la yidhi 7 barwaaqo 7 kaloo abaara ku xiga macnaheedu waxa weeyaan abaartu 7 bay ku dhammaanaysaa waxa ka dambeeya waa inuu noqdaa maxay waa inuu barwaaqo noqdaa إذا النبي يوسف عليه الصلاة والسلام على رسولنا أفضل الصلاة والتسليم وحاو شيغي 15 sannadood dawladdaasi dhaqaalihii ay ku badbaadi lahayd farsamadii ummaddaasi 15 sannadood ay ku badbaadi lahayd ayuu u tilmaamay taasi maxay sheegaysaa waxay sheegaysaa dhaqanka qofka muslimka ah dhaqanka qofka muslimka ah الأصل هو الإحسان والبر قال يا مسلم بين أدو سبب فشو كاسا أصل كوياه مركي شوكتا إحسانية وحبحينية وحايكا ولذلك بقى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يا أبي بكر يا صحابة دي وحيابي أبالك اللوغو هي وحاكم مدأها inay dadka u samafali jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam markii waxyigu ku soo degay dee waxyi hore muu aqoonin wuu baqay dabeetana waxaabuu ka baqay lafihiisa inay wax soo gaadhaan waa habeenadii koowaad ee jibriil uu qabtay ee wuxuu sheegay ee cidhiidhiyey ee nafta isugu keenay khadiija oo nabiga calayhi salaatu wasalaam dejinaysaa maxay ku tidhi waxay ku tidhi kalla ilaahay baan ku dhaartay weligaa in adiga alla ku hoojinaynin xagee ka keentay khadiijo waxay leedahay
nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ha cabsanin horta adiga ilaahay weligaaba ku hoojin maayo sababtu waa maxay bay leedahay waxay leedahay martida waad soo hori jirtay dadka dhibtu haysato dhibtaad ka qaadi jirtay kuwa la dulmiyo waad u hiilin waxay tilmaamaysaa ixsaanka bini aadamku uu sameeyo oo dhan hadda waa intaan waxyigu soo degin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intaan waxyiba ku soo degin oo quraysh iska dhex joogay ee ninka dhallinyarada u ahaa dhaqankiisu inuu ahaa inuu qofkaan waxaysan wax siiyo qaraabada xidhiidhiyo ka dhibtu haysato dhibta ka kor qaado martida uu sooro kuwa yacni inuu ahaa qof bulshada waxtar ku ah xataa abi bakar radia allahu canhu markii ay ku adkaatay noloshii maka intii aan loo hijroonin madiina mar baa dhacday oo abi bakar iskaga baxay magaalada maka markay dhibtu badatay ee aan weli hijradii madiinana bilaabin buu iska tegey isagoo iska socda waa intaan xataa xabashida loo soo hijroon baa la yidhaahdaa isagoo iska socda meesha barkilqamaad la yidhaahdo ayuu wuxuu kula kulmay nin ibnu duqna la yidhaahdo ninka kani qabiilada qaarna la yidhaahdo sayidkeedii weeye waa yeel caaqil ama suldaan qabiil ninaa buu la kulmay abibakar oo iska soconaya wuxuu ku yidhi war abubakarow xagaad ku socotaa wuxuu yidhi innii uriidu an asiixa fi lard waxaan rabaa inaan dhulka ilaahay iska maro siyaaxada waagii hore diimihii hore iyo waxaa jiri jiray dad la yidhaahdo waa saa'ixiin qof aan meel la u socon laakiin iskaga baxa un dhulka oo ilaahay baan caabudaya meeshii cishatu baan u degaya iska socda abubakar wuxuu yidhi makaan meel la jooga noqon weydayoo waxaan rabaa innii uriidu an asiixa fi lardi faacbuda rabbi dhulka ilaahay inaan iska socdo oo ilaahay caabudo saasaan doonayaa buu yidhi ibnu daqina wuxuu ku yidhi inna miluka laa yakhruj walaa yukhraj waar adigoo kale abibakarow nin tolkii iyo dadka ka taga ma tihid nin la saarana ma tihida maxaa dhacay yacni almu'minu yaalif wayulafti weeyaan wuxuu leeyahay adiga abubakari nin tolkii saaro iyo nin tolkiinu hoos kaga taga midna ma tihide adoo kale dee mana baxa buu leeyahay lamana saare sidee wax yihiin buu leeyahay waayo muxuu sababtaa u leeyahay weedhii khadiija ay ku adeegsatay nebiga calayhi salaatu wasalaam weedh la mida ayuu ibnu daqinina ku adeegsanaya abibakar wuxuu leeyahy fainaka tuksibu almacduum watasilu alraxim wataxmilu alkal wataqri dayf watuciinu calaa nawaa'ib alxaq xadiiska bukhaaria warinaya waar adigu buu leeyahay wax ma haystaha mid wax siiya baad ahay barlaawaha qofka ah qof waxtara baad ahay qaraabadiiyo riximka nin xidhiidhiyaad ahay dadka culaysku haysto qof culayska ka qaadaad ahay nin martida sooraad ahay mashaakilka dadka qof wax ka xallila baad ahay bulshada qof waxtar ku ah baad ahayd buu leeyahay qofka noocaasina tolkiina ma saaraan isna ma baxo qof xun ma tihid buu leeyahay sidaad u baxdaa ibnu daqina weedhaasuu tilmaamaya weedhaasi maxay tahay marka waxay tilmaamaysaa dhaqanka qofka muslimka ah waxay tilmaamaysaa qofka muslimka ah ee dhabta ahi inuu yahay qof waxtara wax matare maaha qofka muslimka mid buu maalin nebigu ku yidhi ayaa ku yidhi maxaan sameeyaa waxaa sameey markaasuu yidhi haddaan kari waayana waxaa sameey haddaan kari waayana sidaa yeel haddaan kari waayana markii dambuu nebigu wuxuu ku yidhi haddaba adigu sharkaagun dadka ka haysa buu leeyahay imtixaanun dadku ka cararayaad noqonine imtixaannimadaadun haddaba hayso wixii shar ah jooji buu nebigu ku yidhi haddaan saa kale wax u taraynin idan waxaynu leenahay qofka mu'minka ahee adduunka waxtar buu ku yahay aakhirana waxtar buu ku yahay oo waa maxay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wiil dhallinyaro oo yuhuudiya u shaqayn jiray shaqaalaha nebigu ka mid ahaa wiilkii dhallinyarada u shaqaynayaa la yidhi wuu xanuunsaday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu soo booqday waa qof buka oo la booqanayo
وقف بكو الله بوقنا يوم حياة وولي بيهودية عن مسلم مركنا هاي وحقوقي من قرقودي سقط شيفة نبغى عليه الصلاة والسلام مركو يمي أيوم ماذا حكى فارست لما تنويل كيرابو حكويري وريا ورسلام نبغى ويلك كان الجريات بوقا مغطو وقع عبس قبا هدوي مكردين تصور نرجع مايو ورا أسلم بكويري ورا إسلام إسلام نمو بيريا ويل كده اللي يردها أبيه يد يهوديو ماشي شوقة أيو كرو أجا أبيه نوح كويري أطع أبا القاسم أبا القاسم هو النبي محمد كنيدي عليه الصلاة والسلام وحو كوشي يا أقبل بكويري وضيقنا دابا تنويل كي واي سلامة واي شهات يسقون بكو سكراضة أيوة شهات كدي منور انت نبي عليه الصلاة والسلام بك صوب حي سقوله الحمد لله الذي أنقذه من النار إلهي بام هذا النار كبد باديي يعني إلهي بام هذين يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام قف بنا آدم كأنه عذاب كبد باديي معناه هذا وامحي قفك مؤمن كاهي والنفع جيسو أدونك وقرأكم في الله آخرنا ضدك وانفعيها ووحو التجابين إياه ضدك إنه عذابك بدباديه تصالح هدي قف قبنا إياه كاسو هربح ما هديه لله قولوا لي يضبكو كري هدو كاسو هربح ما هديه لله وحكا لك ما تفكرتين إن الدم يسمو يعني سوعان كما مركو قبطها يا بيكو صيدا يا عيدكو واحد دونتو كلا عرر وحمات سودان الله يدبرتو قفك دمي وحالا ميدا مركا دركتا تولكا يا ددكاغي iyo naar ku sii socda dhabahay hayaan uu yahay maxay jidkii naarta uu kici jiray qofka muslimkii marka waa dhawaaqaya war ka jooga naarta war ilaahay ka cabsada war cibaadaysta haddaad dadka khayrka u sheegto oo ilaahay gacantaada ku hanuuniyo dee waad badbaadisay shaqadii ugu weynayd ambiyadu qaban jireen maxay ahayd waxay dadka inay cadaab uga digaan jannana ugu bishaareeyaan geedi hadduu kugu soo baxo dad guuraya oo wax wanaagsan raba inay helaan oo aad halkaana roob ku ogtiyo barwaaqo halkaa ay afka ku hayaana aad abaar ku ogtay maxaad odhan lahayd wararkani meel la qabta maahe halka baan ku arkay geediya barwaaqe xagga kanu ka cabad kula talin lahayd ila waad aragtaa geedigan hayaanka meesha daran ku socday waxa la mid ah iyadoo ilaahay inooga warramay janniya naar inay jirto markaad aragtaa geedigiyo ku sii jeeda xagga naarta inaad tiraahdo war ka daaya war xagga ma khayr ku jira war dhankana u socotaan ma aha maxay dhankii khayr ku yaalay ma aha استوجد بقى إلهي قرآن كوحك كورمية دعوة يدين دتك جارسينته نم بقى إلهي قرآن كأنه كورمية أنا سوى الرسول يا نبي تونا الوشيء في سورة ياسين قصص القرآن كقصص آد عجيبة كم ده صار سورة ياسين كشرته إلهي وحك كورمية ما قالوا صدح رسول الله دريو ديدي الرسول الله دري ديدين ومت كلا لو كردي ديدين ومت سدحات لو دري فعززناهم بثالث تبتنا ويس سو تاغي إنا تطيرنا بكم بابك مرة وديدين دينتي نين مقالة دا يشوغي لكن دعالك كلا يشوغي هل كراك يشوغتان مقالة دا كلو كتك شوغ وحو مقالة مقالة دي إن رسول تيمي يودت ديدين دبتنا إلهي قرآن كوحكوت الماما يا هل كاسو كعرر وجاء رجل من أقصى المدينة وجاء رجل يسعى له الرئيس يسمى من أقصى المدينة ما هو الرئيس إيه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى إلهي مركو روحت الماما مشو كي من مشى اللي اسكوها يا أنا هين مركو كوات أقصى المدينة بالليل magaalada dacalkeeda halka u durugsan buu ka yimi waxa kaloo la tilmaamay qaabku u socday nin iska xaragoonayo ayar socday inaanu ahayn nin ordaya inuu ahaa tolkii buu rabay inuu badbaadiyo
magaalada dhinaceeda dambe nin ordaya ka soo cararay baa ilaahay yidhi muxuu leeyahay ninkani wuxuu iska xil saaray eegada isma odhan war meesha saddex rasuul la beeniyey adiga macid baa wax ka dhegaysanaysa iska tagtay danahaaga iska raaco haddaba waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo waar markaa wadaadku wacdiyey wadaadkiiba haddaanay raacinin maxaad iga kullu goynaya kan laakiin saddex rasuul baa la diidan yahay laakiin weli wuxuu dareensay in xil saaran yahay inuu qof bini aadam oo wax qaban kara inuu yahay inuu wax taro dabeetana ilaahay wuxuu leeyahay wuu soo cararay ninkaasi meeshuu yimid isagoo le maxay ittabicu lmursaliin ittabicuu man laa yasalukum ajran wahum muhtaduun war tolkayo buu leeyahay war rususha raaca war dadaan waxbaba idinka rabin oo haddana hanuunsan maxaa ku diidaysaan bini aadamku hadduu aad istidhaahdo ama jeebkaagu ku socdaa ama magac iyo maamuus iyo madaxnimo iyo waxbuu kaaga doonayaa waxaa laga yaabaa inaad sira adkayso ismadax adkaysid laakiin qofku hadduu wax kuu sheego isagoo waxbaba kaa rabin adduunku weydiisan madaxnimo ku weydiisan waxba kale kaa rabin hadduu wax kuu sheego waad tilaada qofkaasi wuu kuu naseexeeyey ilaan dan kale uu kugu qabaa ma jirto ee waad tilaada wuu kuu nasteexeeyey wuxuu ninkani leeyahay war rususha raaca waayo adduunna idinkama rabaan magacna waxba idinkama doonayaan ittabicuu man laa yas'alukum ajran wahum muhtaduun war waana hanuunsayiinoo xaq baa idiin sheegayaan wax kaloo idinka rabaana ma jiraan ee raaca buu ku leeyahay qoladaas may raacin isagu wuxuu sheegtay inuu mu'min yahay inuu ilaahay rumeeyey rusushana rumaysan yahay dabeetana way dileen say culammadu sheegayaan way dileen markay dileen maxaa dhacay ilaahay baa qur-aanka wuxuu inoogu soo guuriyey ninkanoo aakhiro jooga wixii uu haddana ka fekerayey hadda maaha markuu adduunka joogay shaqadiisii waa laynoo sheegay markuu dhintay aakhiro qabtay siduu haddana u fekerayay baa ilaahay inoo sheegay aakhiro markuu tegay muu odhanin nimankii rusushana diiday adigana ku dilay ilaahu midha ka reebin kama fekeraynin ee weli waxtar buu la rabaa yaa layta qawmii yaclamuuna bimaa gafara lii rabbii wajacalanii min almukramiin buu leeyahy yaa layt alla jeclaan lahaayee buu leeyahay tolkay inay ogaan lahaayeen sida ilaahay dembigayga u dhaafay ee uu ii karaameeye nicmo ii siiyey jeclaan lahaayeen inay maanta ogaadaan si ay u raacaan yacni iyana rususha u soo raacaan isagoo aakhiro ku maqan ayuu weli wuxuu tolkii la rajeceliyo la raadinayaa maxay ayuu wanaag la raadinaya ma odhanin war waa nimankii ii dilay ee adduunkii iga keenay aakhiro ii diray laakiin wuxuu leeyahay isagoo xaggaa joogu weli wuxuu la jecel yahay kuwaa in khayrku gaadho oo tolkii intay ilaahay rumeeyaan waxa uu nimco ku jiriyo wuxuu dembi dhaafaysta iyo karaamada alla siiyey inay wax ka helaan idan ayuha alaxiba waxaan leenahay war mu'minka dhabta ahi waa kaa dadku ay ku soo hurtaan waa kaa dadku jecel yihiin isna dadka khayrka la jecel waa kaa wanaagga faafinaya waa kaa dadka waxtarka u ah waa kaa dadka anfaca adduuniya anfaca aakhiraba u leh wax bini aadam lagu anfacana kaas baa ugu roon nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo dagaal ku jiro yuhuud ay dagaalamayaan ghaswatu khaybar dagaal adag buu ahaa qalcadihii nimankan waa la furan kari waayey dhowr maalmood baa dagaalku socdo laysku soo noqonayay maalintii dambuu nebigu yidhi saaka waxaan raayada calanka muslimiinta waxaan u dhiibayaa nin ilaahay uu jecel yahay ilaahay rasuulkiisuu jecel yihiin isna jecel dabeetana cali ibn abi aalib baa loogu yeedhay caliyoo bokooraba ku dhacday waa bokooraysan yahay cali meeyo waa bokooraysan yahay baa la yidhi u yeedha buu yidhi calu ku tufay oo u duceeyey calaa indhihii fay u yidhaahdeen dabeetana calankaa loo dhiibay calanku waa hoggaamintii janankii ciidankaa laga dhigay afka aynu maanta ku hadalno ciidanka inuu kaxaysto ayaa loo dhiibay haddaad gaalo is haysaan oo aad dagaal dhowr maalmoodoo hore ku wada jirteen oo wax idinku kala dhinteen oo goobtaa isku haysaan oo ninka aad dagaalka gelinaysaa maxaad kula dardaarmi lahayd
waxaa laga yaabaa hadday naga caqligeena inaad ku dardaarmi lahayd nimankaa xabad ha ka sii dayni sidii aad u qaban karto iyo dhadhansii qadhaadhkaaga inaad odhan lahayd laakiin nebi maxamed taa kulama dardaarmin wuxuu ku yidhi islaamnimo ugu yeedh kow nimankaasi waa yuhuud waa la ishaya waa la dagaalasay haddana khayr baa lala rabaa waayo qofka muslimka asalkaba dadka khayr buu la rabaa asalkaba dadka khayr buu la rabaa gaalnimada inay ku dhintaan faa'iido kuuma laha inaad gaalo ka dhigto dabeetana laysaa faa'iido kuuma laha waxaa kaaga khayr badan inay islaamaan oo islaamnimo ku dhintaan dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi fawallaahi لأن يهديك الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم إلهي ما كنت أرتب النبي عليه الصلاة والسلام إلهي إنه قعنت هذا كهنون يهلنا تذكرنا إساتان متقولوا إنه كاسر راعه أيا كاغا في عن وكاغا خير بدن إن هذا شجالة كيس عسعس بالنبي عليه يعني عربتي واجا joogtay ee dollarka ugu weyn iyo diamondka la yaqaan wuxuu galacsaas galacas inaad soo hesho nimanka inaad geelooda soo xaabiso waxa kaaga fiican buu nabigu leeyahay kaaga khayr badan inay diinta qaataan inay ku islaamaan hal nin oo ku islaama kaaga khayr badan sidaas awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya in allaha حديث كإمام الترمذي ورنيه حسن كوكت المامة صحيح الشيخ الألباني إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير نبقى حلية الله يا ملائكتيس كوة السماء جره يا واحد لك تشوغه حتى أبو نبي قولي هي قرآن تجد كشرته أما كلهم بد كشرة كلا يتهينا إلهي بيوحوا وبريان إلهي إن حرست السيسين يا أنت كلنا وبريسا قف كدتك خير كبره قف كدتك وناق كبره أي خير وضبريان وناق ينحرس يوكا كورا إلهي خلقي سودم هديك ودعيان إلهي خلقي سودم هديك ودعيان ما حد دعاء كهريسا إن الضدك وناق بريسيد هذا وحين لنا حديث كان كوبلا برنامجها المؤمن يألف يؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وأنفع الناس والنبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام مؤمنكم كادتكم كسوهرتان إلا جعلي سنة ومدة وناق الله جعلينه ياهي كان سنة ضدك جعلين يقول أنا جعلين خير بيلس للربيني كاس خير ما لها بالنبي إذن كان وحيدكم خير بدن كينا وأنفع بدن بالنبي عليه الصلاة والسلام أنفع عاسي وحين لنا أنفع الدون والنغنية ورنقا وناق أخلاق وناق عفس واحتر عاومه وهدتك السيسو قف كعنادك هالنقون قف أفحن هالنقون لكن نبغى حديث تبدأ كنت المامي والله في عون عبد ما كان العبد في عون أخيه إلهي قفك مسلم كأوحوه هيليا وقرقارا انت أضادقنا ولالك أو هيلينيسو انت قد كتشل عسان واحتريسو كبو كد وينيسو كجاهل كاوحبريسي كتمرت الدران لعاوينيسي كالنسان هنونينيسي انت تسيدها سمينيسو أدقنا رب السماوات با كبت هذا تولي داد مسلم كبت هذا توليسو أدنا رب السماوات أيكو هقاتشينيا هذا أيها الأحبة وحين لنا قلقل في سنانت يا عيدة يا ما قبضا تتكبر بادين كدكتي تتكون لما أغو هنا خير كجرو وحبا فايدة ولا ما قست يا أضيك يا قلف سنانت يا عيدة بضني خير مالي مومك هو هين لين واحترقنا أما مد أدونها النغضة أما مد آخرها النغضة ودغن مسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.